Soo dhawaada jaalayaal. Tiimka Beta Squad waxay maanta sameynayaan challenge xijo ah. Intuu Nico soo degayo, aan idiin sharxo gameka. Waxay iska dhigi doonaan shaqaale ka tirsan Walmart. Qofkii gudaha u galana wuxuu sameyn doonaa waxyaabaha tiimka ku amraan ama ku xujeystaan. Qofkii daqiiqadaha ugu badan ku jira ayaana noqon doona guuleystaha. Qofka koowaad waa Nico. Markuu gudaha u galo Walmart, waxa ugu horeeya ee lagu xujeysto waa in qof adeeganaya uu gaarigiisa uga rido alaab uusan rabin. Qofkii koowaad ayuuna ugu riday wuxuusan rabin. Naag kale ayuu isku dayay inuu mashquuliyo si uu u rido alaab, kadibna wuu ka dhuntay. Hal qof ayaa u harsan. Tiimkiisa waxay u sheegaan in qofka haray uu ugu rido alaab weyn, kadibna baaldiyaal isku dhex jira ayuu ugu ridaa, wuuna ka dhaqaaqaa. Markuu ninka u waco uu weydiiyo sababta uu alaabta meeshan ugu riday, wuxuu ku dhahaa ani kuma ridin oo wuu ku inkiraa. Kadibna wuxuu u tagaa lamaane raadinayay alaab ay iibsadaan. Intuu soo dul istaago ayuu ku dhahaa alaabta meeshan ku jirta iib ma aha, keliya in la fiirsado ayaan ugu talagalnay. Adiga ayaana noqday qofkii ugu horeeya ee fura ayuu ku dhahaa. Markaasna waxay u sheegaan waxay raadinayaan iyagoo u maleeya inuu ka mid yahay shaqaalaha Walmart. Markuu kuwa ka tago, haddana waxay ku xujeystaan in qof wax uu rabo uu ka qaado, kadibna meeshii uu ka soo qaaday uu ku celiyo. Wuxuu arkaa laba qof waxay rabeen baaldiyaasha. Intuu ka qaado ayuu meel aysan gaarin ka saaraa. Kadibna waxay ku dhahaan anaa rabee soo qabo. Ma gaartid miyaa intuu ku dhaho ayuu ka dhuuntaa. Balse isla markii waxaa qabanaya qolada security-ga. Waxay ku dhahaan iska bax, wuu is adkeeyaa. Asxaabtiisa waxay ku amraan inuu fariisto, kadibna wuxuu gacanka kala hadlaa asxaabtiisa, isagoo iska dhigaya nin la dulminayo. Iyagana way u camiraan ilaa ugu dambeyn ay gacanka ka dhaxayaan security-ga. Kadibna wuu ka soo baxsadaa isagoo la ceydsanayo. Waxay u sheegaan inay booliska waceen oo uu soo socdo. Wuxuuna orod ku galaa gaarigii ay wateen tiimkiisa, iyagoo aadaya xarun kale oo ay leeyihiin Walmart. Nico wuxuu gudaha Walmart ku sugnaa 15 daqiiqo. Markii xarunta kale soo gaaraanna, AJ ayaa loo doortaa inuu gudaha galo. Intuusanba gudaha gelin, wuxuu banaanka ku qabtaa nin rabay inuu Walmart wax ka soo iibsado. Wuxuuna ku dhahaa wax walba oo $5 ka yar maanta waa free ee ka faa'iideyso. Ninkii run ayuu u qaatay, wuuna ka tegay. Isla marka uu gudaha u gudbo, waxay ku xujeystaan in laba go uu soo qaato, kadibna mid uu isaga isku daboolo, mid kalena uu qof ku daboolo, isagoo iska dhigaya inuu qof kale soo tuuray. Oday meel taagnaa ayuu arkaa, wuuna ku tuuraa, isagana midkiisa ayuu saartaa. Kadibna inta uu iska qaado ayuu ku dhahaa yaa nagu soo tuuray. Odayga ayaana ku dhahaya waa kaamirmaankaas, isagaa wax duubaya. AJ wuxuu iska dhigaya inuu kaamirmaanka ku qaylinayo. Markuu odayga dhaqaaqana, go'iisa ayuu ka daba tuuraa. Intaas kadib, tiimka waxay ku xujeystaan inuu u tago qof adeegtay, kadibna uu banaanka ka soo dhigo alaabta uu qaatay, weliba 5 shay ka mid ah. Kadib oday ayuu arkay, wuxuu dhahaa waxaan rabaa inaan ka hubiyo alaabta, maadaama aan keennay caano loogu talagalay alieniska. Odayga wuxuu ku dhahaa maxaa hubinaysaa? Kadibna intuu uu ka diido ayuu ka tagaa. Isla waqtigaas waxaa arkaya laba ka mid ah security-ga meesha. Intaysan qaban ayuu ka gaarsiiyaa. Markuu alaabta qayb banaanka soo saaray ayay naagta aragtaa kaamirada, wayna fahantay waxa uu sameynayo. Kadibna waxa uu waceen security-ga iyagoo u sheegaya inuusan meeshan sii joogi karin, maadaama uusan ka shaqayn. Ninkii uu go'a ku tuurayay ayaa u tilmaamaya inay wax duubayaan. Booliska ayaan u wacaynaa ayay ku dhahayaan. Kadibna nin security-ga ka tirsan ayaa banaanka u soo saaraya. AJ wuxuu Walmart ku jiray 7 daqiiqo iyo 18 sekin. Waxaana markan ku xiga Sharky. Isla marka uu soo galo, waxaa la weydiiyaa maxaad duubaysaa. Tiimka way la yaabaan sida fudud ee lagu arkay. Kadibna Sharky wuxuu ka soo horjeestay kaamirmaanka isagoo iska dhigaya shaqaalaha Walmart, kuna dhahaya waxaan aragnay qof wax duubaya. Waxaa lagu xujeystaa inuu qof ka qaado gaarigii uu ku adeeganayay, kadibna meel dhexe uga tago. Haddana wuxuu u tagaa gabar ka shaqaysa Walmart, isagoo iska dhigaya inuu shaqada ku cusub yahay. Wuxuu haddana madaxa gashtaa salad. Waxaa isla markii u imaanaysa haweeney ka shaqaysa Walmart, iyadoo weydiinaysa meesha uu ka shaqeeyo. Kadibna tiimka waxay ku xujeystaan inuu ka hor ciyaaro. Wuxuuna ku dhahaa arag dansigan aan martay. Waxay ku dhahdaa muuqaal ma sameeyo, TikTok-na ma duubo, ee isoo raac. Kadibna intuu soo raaco ayuu ka dhuntaa. Way aragtay meeshuu ku dhuntay, kadibna banaanka ayay u saartay. Wuxuuna gudaha Walmart ku sugnaa 14 daqiiqo iyo 23 sekin. Markay tagaan xarun kale oo Walmart ah, Kenny ayaa loo doortaa inuu galo. Isla markii waxay ku xujeystaan inuu qof gaarigiisa ka qaato. Gabar ayuu ka qaatay, waxayna ku dhahdaa anaa leh. Inuu mid lunsan yahay ayaan moodayay ayuu ku dhahaa, kadibna wuu u celiyaa.
waxay u sheegaan in gabadha shaqaalaha ah uu ku dhaho shaqada maanta miyaa kuugu horeysa weligeyba kuma arage 13 sano ayaan ka shaqaynayay ayay ku dhahdaa shaqaale sax ah ma tihid miyaa ayuu ku dhahaa meeshuu ka soo jeeda ayay weydiisaa london ayuu ku dhahay iyana california ayay ku dhahday kadibna yaa ku weydiiyey ayuu ku yidhi shaqaale kale ayuu qabtaa isagoo iska dhigay inay isku iskuul ahaan jireen kadibna wuxuu ku dhahaa maxaa u fahmi laadihiin inaanan ahayn shaqaale kadib waxaa lagu xujaystaa inuu qof ag tago kadibna istuuro uuna qofka u qabsado haddana nin ayuu ku dhahaa alaab miyaa xad rabtaa intee ka shaqaysaa ayuu weydiiyaa kadibna in muuqaal la duubayo ayuu arkay wuxuuna wacay qoladii meesha ka shaqaynaysay kenina wuu ka tagaa isla markii way kasoo dabagaleen kadibna inuu baryo ayay ku xujaysteen uuna kasoo baxsado wuxuuna orod kusoo fuulaa gaariga wuxuuna gudaha walmart ku sugnaa 11 daqiiqo iyo 11 sekin janks ayaa markan gelaya kadib waxaa loo sheegaa inuu raadiyo gabar qurux badan qof ayaa u maleeyey janks inuu shaqaale sax ah yahay kadibna wuxuu iska dhigayaa inuu wacayo qof kale oo ka caawiya dadka meesha jooga way aamineen waxyaabo kala duwan ayayna weydiinayeen isla markii qof ayaa u imaanaya oo ku dhahaya iskaga tag meeshan wuuna iskaga soo baxay wuxuuna gudaha walmart ku sugnaa 3 daqiiqo 47 sekin wuxuuna noqday qofkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee laga soo saaray meesha fadlan muuqaalkan like noo saar si uu dad badan u gaaro mahadsanid jaalle